shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa xaflad ballaaran u qabatay guuleystayaasha barnaamijka ku shuba ku guuleyso oo gobolada Bayo Boqol maalmihii ugu dambeeyay ka socday waxaana ka qayb galay wasiiro xildhibaano odayaasha dhaqanka aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ugu horeyntii waxaa madasha lagu bixinayay abaalmarinta Somtel ka hadlay Cabdullaahi Caamir oo ah madaxa ganacsiga shirkadda Somtel. Isleenahay waa wax weyn oo muuqda in qof $1 ama $0.5 telefoon ku shubtay uu helo gaadiid qiimo badan leh, dahab, scholarship, waxa la yiraahdo qasaalad iyo furniture iyo tabletyo iyo hadiyado qaali oo kala duwan inuu qofkaas ku mutaysto $1 ama $0.5. qaar ka mid ah aqoon-yahano iyo odayaal dhaqameedyo goobta ka hadlay ayaa si aad ugu dhiirigeliyay shirkadda Somtel dhiirigelinta ay u sameynayso macaamiisheeda. shirkadoogan oo Somtel Somaliland la ku bilaabay la dadajiyay xamar la sheene hadana dawlad goboleedkan ka horeeyay in maaragnay la ka dhigay koonfur galbeed oo xaruntiis ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo la ka dhigay runtii wal eedan weyn waaye reerkii may wada deegaankii may waa koonfur galbeed gaar ahaan reer Bayo Boqol may baan sheegada goobjoog ana inta dad may waa ku guuleysadeen oo hadii la ka sii ahay eedeedan ka faraxsana hadii uu ana baaxday waxbarashada geekii hore dadka shirkado waa ka dhamaatay lacagta ku shubalay la guraayay ma dib walmalhanka naga jarna xaqiiqdii arrintan arrin muhiim ah dhiirigelinna bulshada nagadaas sumcad faylana Somtel nagadaas la raw Somtel barnaamijkii oo geeka bilaayay runtii barnaamijkii iyo bulshada iska jeelada doonaan kolley waan aragnay arrinta qabateen iyo hadda ballanqaadka qabateen kolley waxaan u maleynaa dadku inay ka falcelin doonaano hadda bilwaandigu meeshii maslaxadiis ku jiro aad ayaa u maleynaya. wasiirka wasaaradda ganacsiga koonfur galbeed Soomaaliya ayaa shirkadda Somtel ku amaanay barnaamijka ku shuba ku guuleyso isagoona sheegay in tallaabo dhiirigelin muhiim ay tahay ama shirkad midda doonta waxaan dhahay la jecel weyn ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo oo ay ayagu tirsanayaan lahaansho u tirsanayaan laga bilaabo maanta asaga oo aan hal mar la dabaynaynin macaamiishayda saaxiibaday meel kasta oo joogaan kan hormuud ah wato kiisa kaleeto ayaan online ka dhigi doonaa aniguna tartanka qayb baan ka mid noqon doonaa. ugu dambeyntii hadiyado ay ka mid yihiin mooto bajaaj, dahab, mobile, furniture iyo hadiyado lacageed ayaa goobta lagu guddoonsiiyay macaamiishii guuleystay. Siraajisha Isaaq warbaahinta qaranka Baydhabo Janay.